isku soo baxyo balaaran oo markaa lagu taageerayo xildhibaanka degmada Kamakunji ee hoos tagta xaafadda Islii Yuusuf Xasan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Haashim Cabdullaahi wa Haashim Maxamuud Baraar ayaa inoo soo diray. kadib markii shaaca laga qaaday natiijada doorashada isreereebka ee asxaabta kursiga Kamakunji oo ay ka tirsan tahay xaafadda Islii ee ay Soomaalidu degto inuu ku guuleystay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa boqolaal dad ah waxay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Gaarisa kuwaas oo u damaashaadayay guusha xildhibaan Yuusuf Xasan. taageerayaasha Yuusuf Xasan oo lulayay astaanta isbahaysiga xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa giblada ku tuntay fagaaraha suuqa xoolaha halkaas oo ay boqolaal taageerayaal ay isugu soo baxeen. aadan Yuusuf Sagaar waxa uu ka mid yahay waxgaradka Gaarisa waxa uuna qayb ka ahaa agaasinka isu soo baxa lagu taageerayay xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uuna RTN TV uga waramay dareenkiisa. Waxaan u hambalyeeynaa Yuusuf Xasan Cabdi oo maaragtay ku guuleystay kursiga Islii Kamakunji waxaan u rajaynayaa guusha dambe inuu sidaas oo kale u guuleysto. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed siiba Islii ma dhahay heblaayo si aad baad u mahadsantihiin qaybgasha ka qayb gasheen arinta aad ka qayb gasheen doorashada iyo qashqashaadkii dambe ee maay dagaalka aad u gasheenba waan idinku mahad celinayaa. dhalinyaradu waxay ahayd cududa koobaad ee qaybta ka ahayd isu soo baxa dareenka iyo shucuurta ka muuqatay waxay ahayd mid laga dheehan karo wajiyadooda. la dhaho Maxamed Digaale oo jooga magaalada Gaarisa waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan sanadkan ma waayaysid baadii Ilaahay yiraahdo insha Allah waad soo galaysaa waabaad hesho meel cidla ah yaad ka qaaday garoonka waa inaad Gaarisa horta imaataa oo bahal dhaanta oo la heli Karim Bango haya Yuusuf oo la heli Karim Bango haya la heli Karim Bango haya Yuusuf oo la heli Karim Bango taasan kugu soo dhaweynaynaa mushmuwa magaalada Gaaris oo dhan gabdhaha dhalinyarada maamooyinka aan la mid kahay hooyooyinka si fiican baan ugu dabaaldegayna subax saa Gaaris ha imaado sidii looga jecel yahay horta arka Gaaris ma aha Islii kale inuu ku haro Gaaris inuu imaado fiican sida maanta waxa ka dhacay Gaaris sidaan saa ku istaagnay ilaa saacada aan taaganahay 3 saac saan u istaagnay ilaa saacada aan taaganahay Yuusuf Xasan waxa tiraahin Gaaris waa wadankaadii oo u dhalatay maanta oo maalin weyn noo ahead maadaama aan ku faraxsanahay mudane Yuusuf Xasan oo 10180 vote haystay midda iyada ayaan la dabaaldegaynay maanta magaalada Gaarisa shacabka ku nool oo dhan midnimada Soomaaliyeed oo qeyraysan ayaana soo dhaweynaynaa anaga naftirkeena maadaama maanta aan ku faraxsanahay dabaaldegaan ka subina Gaaris. ugu dambaystiina Aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaanka bartamaha Gaarisa ahna hogaamiyaha qalbiyada aqalka baarlamaanka ayaa ugu hambalyeeyay in uu xildhibaan Yuusuf Xasan uu ku soo istaagi doono xisbiga Jubilee. madaxda sare ee xisbiga Jubilee waxaan tahniyad u dirayaa mudane Yuusuf Xasan xildhibaanka laga soo doortay Kamakunji oo matalo ummadda Soomaaliyeed ee degan caasimada wadanka Kenya Nairobi waxaan mahad kale u celinayaa ninkii la tartamayay Simon Bogwa oo aan la hadalnay oo madaxweynaha uu la hadlay oo haddana ogolaaday inuu u istaagi doonin kursiga. Haashim Maxamuud Cabdullaahi Haashim Baraar RTN TV Gaarisa.